kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sidii loo dhaadhicin lahaa shirkii maalmahanba uga socday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Faafan iyo deegaanka Soomaalida qaybihiisa kala duwan ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jigjiga. Umar Maxamed Xasan waa madaxa arrimaha siyaasadda ee xisbiga Barwaaqo laantiisa magaalada Jigjiga waxa uu inooga warramayaa kulamadii maalmahanba uga socday magaalada Jigjiga. runtii wuxuu ahaa shir si wanaagsan loo soo agaasimay isku dhacyada nidaamka magaranaysa isku dhaca ama qalaafaadka ka kala yimaada shacabka deegaanka ku nool qaababka loo xalin lahaa iyo magaranaysa qalaafka waxyaabaha uu ku iimaanay iyo qaabka loo xalin lahaa dood wadaag buu lahaa runtii doodo fara badan oo laga yeeshay awgeed halkaas waxa ka soo baxay miro wanaagsan oo isku dhacyada looga hortagi karayo nidaamka halkaasi inuu ka baranay waxa ka mid ahaa isku dhac horteed qalaafkii jiray in la xaliyo si uusan isku dhacba ugu iman taasina insha Allah marka hadda ay degmooyinka ku noqdaan madaxda arrimaha siyaasadda ee degmooyinka aynu gobolka Faafan ee ka kala socda qaybihiisa kala duwan iyo magaranaysa qabiirada 12 ka inta barka ay qaateen ee aadka muhiimka u ahaa inay si dhaadhiciyaan ilaa heer qabalay baa loo dhaadhicin doona haddii aan yiraahdo qalaafaadka noocyo badan buu iskugu jiraa qayb wuxuu ka yimaadaa qabaa'ilaadka iyo magaranaysa iyo xagga dhulbeereedka isku dhaca magaranaysa uu ka yimaada ayaa hadda muddooyinkan badan aad u soo badanayo ku jiray marka tii ayada ahayd qaabkii magaranaysa xal loogu heli lahaa iyaduna aan haddii aan yiraahdo iyo xalkeedu helnay haddana noo sii dhaadhici doona guddoonka ayaa dhanka kale ugu baaqay qurbo joogta gobolka Faafan inay soo maalgashtaan deegaanka Soomaalida isagoo xusay inay jiraan qaar ka mid ah qurbo joogta ama dadka lacagta haysta ee iyagu la siiyay dhul si ay maalgashi ugu sameeyaan isagoo u qabtay muddo 2 bilood inay ku soo maalgeliyaan haddii kalena laga laaban doono ogolaanshihii hore loo siiyay qurbo joogta degmooyinka gobolka Faafan ka soo jeeda dunida dacaladeeda ku kala nool in ayuu ka faa'iideysanaya magaranaysa nabadda iyo magaranaysa dimuqraadiyadda ka dhalatay deegaankayga inay maalgashadaan magaranaysa degmooyinkooda u soo noqdaan isla markaasna kaga faa'iideeyaan shacabka ayagana ay kaga faa'iideystaan degmooyin hadda waxa jira gobolka Faafan ka mid dhulul laga siibaa jirtay xubnooyin investor ilaa imankana wax isma ayna ka sameeyeen kuwaasina waxaan faraynaa muddo 2 bilood gudahood inay ku soo dhistaan isla markaasna ku soo maalgashadaan goobahaasi haday dhici weydana lagala noqon doono dhulkii hore loo siiyay kulamadan ayaa la rajaynayaa inay wax badan ka qabtaan isku dhacyada qabaa'ilada deegaanka Soomaalida oo iyagu xilli roobaadka isku qabsada dhul beereedka si heer sare telefishinka codka bariga Afrika Jigjiga hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom